Manchester United ayaa gaartay guul muhiim ah kadib 2 gool ay ka adkaadeen kooxda Tottenham kulankii wareegga 25aad horyaalka Premier League ciyaar ka dhacday Old Trafford. Kulankan si weyn ayuu isu bedelay 20 daqiiqo markii daafaca Sportska Cristiano Romero kaarkaas loo taagay kadib qalad uu ku galay Casemiro. Tottenham ku qasabtay inuu ku ciyaaro 10 ciyaaryahan. United ayaa ka faa'iideystay tirada dheeraadka ah waxaana goolku waa dhaliyay Bryan Mbeumo 38 daqiiqo kadib caawin qurux badan uu ka helay Kobbie Mainoo. qaybta labaad kabtanka Manchester Bruno Fernandes ayaa xaqiijiyay United in 3 dhibcood markuu shabaqa gaaray 81 daqiiqo kadib kubaddu soo korosay Diego Dalot. guusha United ay uga heshay 44 dhibcood iyagoo gal kaalinta afraad halka Tottenham ay 30 dhibcood la fadhiyaan si ku meel gaar ah kaalinta 12aad. Manchester ina kulankii afraad oo xiriir guul gaartay xilli Michael Carrick uu wali wada rikoorkiisa guul la'aanta ee kooxda Manchester United maadaama waqtigan uu yahay hogaamiyaha si haya shaqada inta kooxdu ay heli doonto maalin kale. Ciyaartoyda Manchester ayaan la arkay bandhigoodii cajiibka ah ay soo ciyaareen kulamadii u dambeeyay ayaan halkooda ka sii wadeen. Carrick ayaana ciyaaray shaxdiisa kulamadii kaga soo adkaaday Arsenal, City iyo kooxda kubadda cagta Fulham. dhinaca kale sheekooyinka waxaa qayb ka horyaalka Sacuudiga ayaa ka gaaray go'aan hogaamiyaha kooxda Al Nassr Cristiano Ronaldo. Saudi Premier League ayaa doortay 2 ciyaaryahan oo waaweyn inay si u noqdaan wajiyada cusub ee horyaalka haddii uu baxo Ronaldo. Wararka soo baxay ayaa sheegay in qadka dhexe Manchester Bruno iyo Iranka Liverpool Mohamed Salah loo arko xulashooyin ku habboon beddelka Ronaldo. dhanka sumcadda horyaalka Sacuudiga Ronaldo 40 jira ayaa ciyaaryahanka ugu caansan horyaalka tan markii uu ku biiray kooxda Al Nassr December 2022 kadib markii uu si xor uga yimid Yurub. 2025 ayuu si heshiis weyn ka oo kooxda ku joogay ilaa xagaaga soo socda. hadallada uu ku daray milkiilayaasha kooxda Public Investment Fund PIF oo ku saabsan inaanu ku filnayn inaan la xoojin suuqa ayaa dhaliyay shakiyo ku saabsan mustaqbalkiisa. Ronaldo ku guulatay 5 jeer Ballon d'Or oo qandaraaskiisa ku jira qodob u ogolaanay inuu baxo haddii la bixiyo 43 milyan dhammaan xilli ciyaareedka ama dhamaadka xilli ciyaareedka. warbaahinta Eibar ayaa sheegtay in Salah Fernandes ay noqon karaan beddelka ku habboon gaar ahaan Salah oo soo jiidan kara taageerayaal Carabeed oo muslimiin ah. Salah Liverpool uu ciyaaray 2017 isagoo dhaliyay in ka badan 250 gool halka Fernandes United 2020 isla markaana dhaliyay in ka badan 100 gool. dhinaca kale muxuu yahay go'aanka rasmiga ah Marcus Rashford inuu sii joogo kooxda Barcelona inuu ka dhaqaaqo. Barcelona ayaa go'aansatay inay si rasmi ah loo soo wareegto waryahanka Ingiriiska Rashford ka oo amaah ku joogo kooxda Barcelona. Rashford ayaa bandhig heer sare ka sameeyay intuu joogay New Camp taa keentay maamulka Barcelona go'aansadaan inaysan xilligan xidig uu dib u laaban. wariye Luis ninka lagu magacaabo ka tirsan wargeyska Sport ayaa sheegay in Barcelona si wadar u ogolaatay inay bixiso 30 milyan oo euro si rasmi ah loo soo wareegto Rashford. Miguel wuxuu yiri Barca waxay adeegsan doontaa qodobka 30 milyan si rasmi ah loo soo saxato ciyaarahanka ma jiri doonto wax gorgortan ah maadaama Manchester aysan hoos u dhigi doonin qiimaha. kooxda Catalan ayaa ah kooxda la rumaysan yahay in qiimahan uu yahay mid cadaalad ah marka loo eego tayada ciyaaryahanka qiimaha uu joogo weeryahan la mid ah. Barcelona ayaa sidoo kale xiriirtay kabtanka Tottenham Cristiano Romero iyadoo la sheegay in xiiseynaya saxiixa. warar kale soo baxay ayaa sheegay in Sergio Ramos laga yaabo inuu dib ugu laabto Madrid kadib markii bishii December ka tagay kooxda Real Madrid Monterrey. Ramos ayaa sidoo kale la xiriiriyay inuu ku laabto Sevilla balse agaasimaha ciyaaraha Sevilla Anthony Gordon ayaa sheegay inaysan jirin suurtagalnimo dhaqaale ku filan ay ku fulin karaan heshiiskaasi qaaliga ah. kadib 4 kulan oo ku soo bilaawday shaxda kooxda Manchester Kobbie Mainoo iyo xilligan heli doona qandaraas cusub. Manchester ayaa diyaarinaysa inuu dib u bilaabo hadallada qandaraas kordhinta Kobbie Mainoo kadib markii si la yaab leh soo muujiyo tan imaashii Michael Carrick. 20 jirkan ayaa ku soo bilaawday dhammaan kulamadii Carrick tan markii xilka loo dhiibay isagoo bandhig heer sare ah ku sameeyay kulamadii la ciyaareen City, Arsenal, Fulham iyo kulanka Tottenham. Manchester ayaa doonaysa inay hubiso mustaqbalka xidigga ka baxay akademiyadda kooxda goor dhamaadka ciyaareedka iyadoo hore buu caddaysay Mainoo uusan marnaba iibahayn. Mainoo ayaa wali u ciyaaray qandaraas dhalinyaro u sax 2023 maamulka Old Trafford ayaa doonayay in si cusub waqti dheer ah kana tarjumay kaalintiisa sii kordhaysa muhiimadda uu leeyahay kooxda. talaabadan ayaa muujinaysa kalsoonida buuxda United ku qabto Mainoo oo hadda noqday tiir muhiim ah tan soo laabashada Michael Carrick. koox badan ayaa daneynaya qayb ka mid kooxda Napoli laakiin laacibka qudhiisa ayaa ku faraxsan xilligan bandhig uu ka sameeyay kooxda Divalska. Bruno ayaa gaaray 200 gool iyo caawin uu ka sameeyay kooxda Manchester United hogaamiyaha kooxda Divalska kadib imaanshiisa. goolkii uu dhaliyay maanta ayaa ka dhigaya
200 oo goolal iyo caawin markii isku daro intuu ka qayb qaatay xidiga kooxda Red Devils ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes. dhinaca kale tababaraha Brazil Carlo Ancelotti ayaa xaqiijiyay ciyaartooyda la hubo inay ka soo muuqan doonaan koobka adduunka xulka Brazil. wuxuu qayb ka ahaa golaha Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Casemiro, Bruno Gomes, Vini Jr., Estevão, Rafinha, Rodrigo, Matheus Cunha iyo Gabriel Martinelli. Ancelotti ayaa ciyaartooydaas ka dhigay lama taabtaan inay noqon doonaan kuwo si walba u heli doona inay u ciyaaraan xulka qaranka Brazil dhacda koobka adduunka. sheekooyinkan ayaa nagu weynaa saaxiibayaal ciyaaraha qodobkee ku soo jiitay.